ahaayeen dadkii maaragtay u sheeg deegaankan maaragtay dhibaatada ka waday waxaan uu qayb ka mid ah ma wada eeynin qaybtaasna waxa waayo ilaahay aan iskale ciidamada qaranka iyo muxuu ahaay iyo maamulka marka ay isu tageen oo culaysyo badan la saaray kadib waxaa dhacday in ay maaragtay la soo xiriiraan maamulka yiraahdaan muxuu ahaay anagu intaan qaladaada aan ku jirnaa waxa ka jirana deegaanka maaragtay ay sheeg waa inaan qaldanna waa ogaan waa ciyal waradii miyaa والله ودليل اسكو دارو طبعا ماركه حق iyo baadilka isku mid ah arkeen wada hadal foolka fool ah ay yeesheen qaar ka mid ah horjoogayaasha cayaal weerarada iyo maamul degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir maxay ka wada hadleen maamulkaasi degmada iyo cayaal weeraradana maxay isdhaafsadeen maxayna ku heshiiyeen warbixin aanu ka diyaarinay ayaan idin haynaa isla markaasina idin soo gudbin doona haduu eebaha awood leh ee noo ogolaado qodobada kalena waxaa ka mid noqon doona iskuulka sare ee 15 May ee degmada Horta Nabadda isla markaasina aan wax ka yar 2 daqiiqo wax loo lugeynayo fila Soomaaliya u jiro hoobiyaashii caawa ku soo dhacay oo dhimasho iyo dhaawac ka dhashay isla markaasina qasaare kala duwan warbixintaasi maxay yihiin hoobiyaashaasi yaa soo tuuray qayb ayay ka tahay u diyaar garooba ayagoo faahfaahsan anigoo Musa Maxamed Cali kaaga soo jeediyo halkaan bartan ku leenahay YouTube-ka ee Doobiye Media iyo MDoobiyo barta kale Facebook-ka adigana daawanaya boqoshadaada ku hadiyada subscribe-ka noo sana fadlan calaamad subscribe ta gambalka furo hagaag haddii aanu ku bilaawno sida hordhaca ku daawateen isla markaasina idin soo gudbinay qaar ka mid horjoogayaasha cayaal weerarada iyo sidoo kale maamulka degmo ayaa wada hadal ku yeeshay maanta Muqdisho waxyaabaha ay ka wada hadleen maxay ahaayeen maamulka degmada Karaan ayaa maanta galabta waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada ka tirsanaa cayaal weerarada iyo sidoo kale kuwa kale horjoogayaal ah garoonka kubadda cagta ee qoob doore degmadaasi ayaa waxa kula kulmay gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka iyo sidoo kale xubno kale oo mas'uuliyiin dawladeed oo degmadaasi degan gudoomiyaha degmada Karaan Abshir Karaan ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradaasi ay wada hadal u bilowday isla markaasina si ka fool u fadhiisteen wuxuuna tilmaamay inay ahaayeen kuwa gartay in dhibaatada ka jirta degmadaasi ay dhib ka ba'an tahay ee ka tanaazulayaan wuxuuna intaa ku daray in wada hadalka iminka uu bilaaw yahay dhalinyarada maanta ee la kulmeen ay sheegeen in ay ka tanaazuleen wuxuuna gudoomiyaha degmada Karaan ku nuuxsaday in hadda cafis loo fidiyay dhalinyaradaasi dhibkii hore ay geysteen wuxuuna ballaaran u jeediyay gudoomiyaha gobolka iyo hay'adaha amniga oo ciidamo fara badan amniga lagu xaqiijinayo degmada soo gaarsiiyay wuxuuna intaa ku daray in maanta wixii ka dambeeyo dhalinyarada la cafiyay iyo sidoo kale kuwa kale hadduu dhibka sii socdo ee naqan doonaan in guryaha lagala soo baxo wuxuuna sidoo kale xusay in wax walba oo halka lagu raadinayo amniga kala dambeynta degmada ee naqonayso mid ciidamada ammaanka ee ka shaqeynayaan hadal iyo muxuu ahaay sheeg iyo nidaamka sharciga lagu xalleeyo insha Allah ee ahaayeen dadkii maaragtay u sheeg deegaankan maaragtay dhibaatada ka waday waxaan uu qayb ka mid ah ma wada eeynin qaybtaasna waxa waayo ilaahay aan iskale ciidamada qaranka iyo muxuu ahaay iyo maamulka marka ay isu tageen oo culaysyo badan la saaray kadib waxaa dhacday in ay maaragtay la soo xiriiraan maamulka yiraahdaan muxuu ahaay anagu intaan qaladaada aan ku jirnaa waxa ka jirana deegaanka maaragtay ay sheeg waa inaan qaldanna waa ogaan waa ciyal waradii miyaa والله ودليل اسكو دارو طبعا ماركه حق iyo baadilka isku mid ah arkeen in aan maanta waxa si socdo lagu sii jiri karin aad iyo aad waxa weeye dabcan hadii awood ciidan deegaankii dawladda aan ka codsanay dawladda uga mahadcelinayna marka ugu horeyso madaxda sare ee qaranka iyo gudoomiyaha gobolka ay maaragtay qaralaasiye awoodii maaragtay baahida degmadan Karaan ka jirtay in la xalliyo la isku day wax kastana halka ku dhac jira iyo awooddaas ciidanka ku dhac jira horjoogayaashoodii miyaa waxa aad u yeerteen galabta oo goobtii qayb kamid ah maamulka la soo xiriireen oo aan u furnay haddana waa bilow
wax ballanqaadyo gooniye ma jiraan. waxaa jiro in maaragtay ay sheeg dhibaatada cid kasta oo dhibaato wado in gurigeeda iyo muxuu ahaa il isla xisaabtan iyo meel ay ku baxsay aysan jirin. haddana loo fidiyey maanta laga bilaabo wixii hadda ka horreeyey inaan cidda lagu oogeynin. hadday laakiin balaayada sii socotaa saacadahaas ayagaa amniga ay u madax bannaan yihiin guryaha lagala bixi doono. sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaaraan Cabshir Kaaraan ayaa wuxuu xusay dhalinyaradani in ay gaarayaan ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ku dhawaad ah isla markaasina ay maanta kulanka ay la qaateen soo qaban qaabiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo halkaasi ku sugnaayeen. maya raggaas ciidankay kamid ahaayeen. muxuu ahay qabanqaabada iyo hawsha lasoo qabanayay iyo waxaa laga shaqaynayay garabka siinayeen maamulka kaana mid maahayna raggaas waxay ahaayeen rag la yaqaan oo ciidamada qaranka ka tirsan oo amni darada ka soo ma ogna waxaa ogaysana meesha jooga saafida oo saraakiil waxay kamid ahaayeen. wallahi lama soo koobi karo ragga dhalinyarada ma sheegaysa ciidanka dhalinyarada dhalinyarada waa badnaayeen wax dhowr boqol ay gaarayeen laakiin wadahadalka waa bilaaw dhamaystirkana waa kula soo wadaagaynaa insha allah. degmada Kaaraan ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka inta badan dhibaatada falalka amni darro ee laga soo warinayo oo isla markaasina la sheegayo in ay ka dambeeyaan kooxo sida gaangiistarka u abaabulinaya cayaal weerar loogu magac daray oo dhibaato xoogan bulshada ku dhaqan halkaasi ku hayaan. caawa xilligii afarka magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay madaafiic hoobiyaal ah iskoolka 15 May ee degmada Warta Nabadda isla markaasina kaabiga ku hayo aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya ee u jirto wax loo lugeynayo 2 daqiiqo gudahooda ayaa waxaa ku soo dhacay hoobiyaashaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac iyadoona aan la ogeyn halka sida rasmiga laga soo tuuray cidda soo tuurtay. inta la xaqiijiyay waxaa la sheegayaa in school 15 May darbigiisa uu ku dhacay caawa hoobiyo isla markaasina dhimasho iyo dhaawac halkaas ka geysatay iyo sidoo kale shaleemo ka soo horjeeda shaleemo xamar loo yaqaano isla markaasina khasaaro kala duwan halkaas uu ka dhashay. inta la xaqiijiyay hoobiyaashaasi ayaa caawa waxaa la sheegayaa inay ku dhintay hal qof halka ay ku dhaawacmeen tiro in ka badan 4 ruux. madaxtooyada Soomaaliyana wax aanay sidaasi u badnayn ayay goobahaasina waxyeelada ay ka dhalatay ee ku yaaliin mar haddii ay madaxtooyada agteeda hoobiyaal ay ku soo dhaceen isla markaasina kaabiga madaxtooyada school 15 May aan sidaa ugu fogeyn ay ku dhaceen hoobiyaashaasi isla markaasina ilaalada madaxtooyada qaar ka mid ah ee waxyeelo ka soo gaartay iyo sidoo kalena dad shacab ayaa waxaa su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya in 3 jeer oo bishani lasoo dhaafay iyo bishii ka horeysay ay ku soo dhacay Muqdisho hoobiyaal sidoo kalena aysan xaqiijin hay'adaha ammaanka aysan wax war ay ka soo saarin cidda soo riday goobta laga soo riday. waxaana jirto in falalkani dhowr jeer ay soo laabteen isla markaasina dadka shacabka ay ku tilmaamayaan hay'adaha ammaanka in ay ka gaabiyeen isla markaasina aysan xakameynin ammaanka magaalada Muqdisho. hagaag waa tahay akhyaartu waana jecelnahayo intaasina ayaan ku soo gabagabeynayna qodobadii dhowrka ahayd ka daawanayseen bartaan ku leeyahay media kala Facebook MTV tan iyo markalana waa macali waxaan iyo Ramadan mubaarak